وين يا مقعد بشير محمد قلبي. بشير سؤال حلال هدان كو ديار موتا وياي ان ديارت ayaa dhismo ka soo duushay waxay waday rakaab 150 ruuxa qabr dahar timaaday nin naag kaliya ka soo degay 150 hagaagay waa nin inaagbo ninkana waa 100 naagtana waa 50 ya naagta ninkana waa 100 ay naagtana waa 50 ay waka haye ma garanin aad ma santahay ay waa gartay haye ilaahan 150 ruux baa saarnaa nin naag kaliya ka soo degay see ku dhacday وسام وشاقون وكا نكنا وبقول نكتنا وكنتم اي هذا ما صدق اي بلاد سرا abla su'aalina ku diideer moota ديار بان واحد su'aashana u dhacaysa waxa ka soo baxay laba gabdhood iyo laba wiil labada gabdhood waxay yiraahdeen wiilashan dhalow seetiin kuwan aan dhabar ku sidnaba aabayaashooda ayaa tiin see ku dhacay wiilashan dhalow seetiin carruurtan aan dhabarka ku wadno aabayaashooda ayaa tiin wariyay su'aasha ma garanayo ya wariyay su'aasha ma garanayo isku day wiilashan dhalow seetiin kuwan aan dhabar ku sidnaba aabayaashooda ayaa tiin marka ma gabdhuhuna wiilasheega dhalay miya ay wadaan wiilasha laba wiil bay dheen salaamayaan anaga dhalay bay leeyihiin kuwan aan wadnana ayaga iniga dhalay bay leeyihiin see ku dhacday wiilasheega islaamuhu gabdhuhu wiilasha kuwan ayaga dhalay kuwan ayayba wiil sida wiilasha dhabarka lagu wado gabdhuhu iyaga dhalay iyaga dhalay kuwa weyn iyaga dhalay kuwana wiilashaasi dhalay waa ayayba wiil saamiya see ku dhacday ayaga dhalay afarta qof oo isdhalan meesha maray su'aasha ma garanayno cabdi maxaa su'aalina ku diideer moota diyaar su'aashana u dhacaysa diyaarad ayaa ka soo duushay Addis Ababa 150 ruux ayaa soo fuulay qabri dahare iyo ka soo degtay magac albaabkii la furay nin naag kaliya ka soo degay 150 ruux kala xagaadeen wayna soo raacintay way soo raaceen wayna soo duushay maxba kama jiraan maxba kama jiraan aslada waxba kama jiraan maxba kama jiraan ay waka markaa soo raacay aywa ma soo maxamed aadan maxaa su'aalina ku diideer moota diyaar baan diyaaradda ka soo duushay Addis Ababa qabri dahare u soo socotay waxay soo qaaday 250 qof oo rakaab ay soo qaaday qabri dahare markii soo degtay nin naag kaliya ka soo degay 250 ruux xagaadeen laba maxaa soo sugaale Addis Ababa iyo diyaar ka soo duushay 250 ruux ay soo raaceen 250 ruux ya soo raacay way soo duushay qabri dahare markii soo degtay nin naag kaliya ka soo degay 250 ruuxna way saarnayeen xagaadeen dadkaas 250 ruux baa soo raacday diyaaradda xagana markay timideen laba ruux baa ka degay diyaaradda nin naag kaliya ka soo degay indeed rakaabkiiba rakaabka meesha aadama baana qabri dahar markii yimaadeen ma diyaarad Addis Ababa ka soo duushay qabri daharna way soo aadeen ma soo degtay horta way soo degtay wayna ka soo degeen dad ka soo degay waka markaas laba ruux ayaa wili gabdho ka soo degay waaba waxa waa diyaaradda iyo leh yarkaabkii darawal balkii ma garan siday waa 250 ruux baa tiri markay soo degtayna laba ruux ka soo degay nin kaliya ka soo degay markaas waxaan u maleeyaa diyaaradda iyo leh iyo darawalkii waday maxamed su'aalina ku diideer moota aadiyad way su'aashana ayuu dhacaysa laba gabdhood iyo laba wiil baa iska soo baxay labada gabdhood waxay dhaheen wiilashan dhalow seetihiin kuwan aan dhabarka ku wadno mana markaas caruur ahaa aabayaashooda ayaa tihiin mar laadi ugu cilibin wiilashan dhalow seetihiin kuwan aan dhabarka ku sidnaba aabayaashooda ayaa tihiin wiilashan dhalnow seetiin kuwan dhabar ku wadna aabayaashooda tiin ciyaal bay markay xambaarsan yihiin marka ma iyaga aabaha dan u noqonaya bulukaadi oo wax noqonaysaa awiyashooda kala wada ladan Axmed ladana ina su'aal ku diideer moota diyaar waxa iska soo baxay laba gabdhood iyo laba wiil labada gabdhood waxay yiraahdeen wiilashan dhalnow seetiin kuwan aan dhabarka ku wadnaba aabahood ayaa tihiin see ku dhacday waxay ku dhacday su'aashii ugu celi markale laba gabdhood iyo laba wiil baa iska soo baxay labadii gabdhood waxay yiraahdeen wiilashii aan dhalow seetiin kuwan aan dhabarka ku sidnaba aabayaashooda ayaa tihiin marka sababta aabayaashood ku noqdeen baa la iska raacay sababtii gabdhahan ay ku dhaleen wiilkana wadaan ay ku dhaleen baa loo baahan yahay ma garanay taas ay adoo sida magacayga saddexno Cabdikariin Maxamed Nuur Cabdikariin su'aal xalaal inaan ku diideer moota diyaar baan soo dhaweynaa barnaamijkan wadana aad baan ugu faraxsanahay waa barnaamij
aad loogu reeyey maalmihii dambena magaalada qabdaar aad uga dhex muuqda weeyaan waana soo dhaweynaynaa oo madadaala aad iyo aad waaye nagu beer jilacsan maysa su'aal dhagaxa indhaha kaa gelin doonaa rajeynaya inaan ka jawaabno insha allah waaye su-aasha sina u dhacaysaa geela markuu arooro ceelkii uu ka cabayna uuna gaadhin oo habeenkaa meel dhaxa uu seexdo xaradaas magaceed baa la yidhahdaa uu geela u seexday reerkiina maaha ceelkiina maaha waan fahmay waxaan rajeynayaa su-aashaas horta aad uma garanayo waayo mayo inaan ka garanayo iyo inaan in badan iyo in yar midna ma garanayo ma garanaysaa waxaan rajey haddii su-aasha laisku bedeli karana hala bedelo haddii kalena mataqaantahay wasalaamu calaykum waa kusoo dhaweynaya ugu horreyn magacaaga magaca waxaa la saaxiib cabdiqaadir macalin cusmaan cabdiqaadir su-aal xalxidhaalaha inaan ku weydiiya diyaar moo tahay haddii aad garato xalxidhaalahaasi waxaad nagu yeelan doontaa ninkaagan dheer ee xali jiray abaalmarin haddii aad garan weydana dee rabadaan mubaarag baan kulana waa sax sax diyaar baan inaad weydiiso waaye su-aasha sina u dhacaysaa diyaarad ayaa ka soo duusay Addis Ababa ayadoo rakaab 150 qof ah wadda waxay ka soo degtay magaalada Qabri Dahare diyaaraddii marka albaabkeeda la furay waxaa ka soo degay nin naag kali ah 150 qof xagee aadeen bal wuu celi su'aashaas Addis Ababa ay diyaarad 150 rakaab ah sidee ka soo duushay 150 qof ayay wadaa way ka soo sharaacatay waxay ka soo degtay Addis Ababa waxay ka soo degtay Qabri Dahare waxaa ka soo degay nin naag kali ah 150 qofna way soo qaaday dadka xagee mareen okay haddii marka hore wadee rakaabku nin naagan bay ahayn baan malanayaa san jeclah maya way tahay su-aasha waka rakaabku marka horeba nin naagan bay ahayn waxa saarnaaba rakaabka diyaaradda 150 150 qof hadda nin naagan bay ahaynba saasay ku soo degeen waaye aad baad mahadsan tahay su-aashii waad garatay abaalmarintaadina waat mahadsanid aad baad u mahadsantahay saaxiib rabadaan kariim waan ku soo dhaweynaya walaal magacaaga saddexan cabdikariim maxamed xasan oo dhowe cabdikariim su-aal xalxidhaala inaan ku weydiiyo diyaar moo tahay soo daa waaye su-aashu sidan ayay u dhacaysaa diyaarad ayaa ka soo duushay magaalada Addis Ababa ayadoo sida rakaab dhan 150 qof Qabri Dahare ayay ka soo degtay nin naag kaliya ka soo degay diyaaradda dhanneed 150 qof wadi dadku waa nin iyo naagun bes dadku waa nin iyo naagun oga wala konton waa nin iyo naagun bay ahay waaye su-aashaasi waad garatay abaalmarintaadina waatan dabcan su-aal kale ma ku weydiin karaa waad weydiin kartaa waaye dhanka dhaqanka see isku diin dhaqanka iyo waan isku dayayaa kolley waaye su-aashan sidan ayay u dhacaysaa geela markuu arooro isla markaana uu gaadhin ceelkii uu ka cabi lahaa reerkiina uu ka soo fogaaday ceelkiina ma gaadhin habeenkii meel dhexa ayuu markaa geelaasi u seexday xaradaasi uu markaasi geela uu habeenkaasi u hoyday magaceed baa la yidhahdaa xeroguul baa la xeroguul xeroguul mahadsanid aad baad mahadsan tahay mar kale waad iga daldalaysaa ayo ugu mahadcelina